runtii waxyaabaha dhalinyarada hormuudka horumarka magaalada Gaalkacyo ay ka qabteen waa waxyaabo runtii bulshada dhan arkayaan oo ah ay ka mid yihiin nadaafadaynta magaalada qaybaheeda kala duwan ay ka mid tahay baraha ugu muhiimsan iyo sidoo kale ranjiyeynta laamiyada oo aan ku calaamadineynay si gawaarida iyo loo ilaaliyo amniga gawaarida sidoo kale waxaa jirtay geedo aan ku beernay magaalada Gaalkacyo ay ka mid tahay aeroboorka oo ah meelaha fiyaalaha ugu quruxda badan magaalada oo aan ku beernay geedo aad u fara badan wadooyin kala duwan oo magaalada ku yaala waxaan kaloo runtii ku haminaynaa tiiman badan oo kala duwan oo Soomaaliya inaan fikirkan gaarsiino ra'yigan gaarsiino taladan la wadaagno sidoo kale aan ku casuuno magaalada Gaalkacyo dadku waxay ka aaminsan yihiin magaalo colaadeed magaalo cabsiyadeed magaalo aan ahayn magaalo horumarineed laakiin waxaan tusaynaa bulshada Soomaaliyeed Gaalkacyo in sawirka bedelan ay leedahay xiligan habeen barweeye waa shaqeynaa maalintii waa shaqeynaa habeenkii waa shaqeynaa wax cabsi iyadoo aysan ugu jirin wax khalkhal iyadoo ugu jirin wax maaragtay hagrasho iyadoo ugu jirin baa si waxa ugu shaqeynaa iyadoo cidna taageeraynin dad baa aaminsan haddii aan hay'ado taageerayn ama dawladdu taageeraynin inaanay shaqeyn karin laakiin maskaxdayada iyo maankayga iyo caqligayga waxaanu Ilaahay noo siiyay inaan ku garano dalkan anaga iska leh hay'adana nama lahan oo anaga nama samaysanin dawladuna dadka weeyaan ma ahan madaxweyne iyo golo wasiiro marka waxaan shaqooyinkan aan qabanayno aan ugu qabanayna wadaninimo iyo jacayl iyo sawirka khaldan ee laga aaminsan Gaalkacyo in dadka tusino sawirka ka bedelan leedahay bulsho diyaarsan inay leedahay dhalinyaro u heelan inay dalkoodii dadka u shaqeeyaan inay Gaalkacyo leedahay kuwa aan sugaynin inay cid taageerto inay leedahay maalkooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda inay iskugu daraan inay bulshadooda wax qurux badan iyo wax wanaagsan u sameeyaan marka arimahaas oo dhan anagoo ka dhameynayna baa shaqooyinkan isu taagnay isku xilqaanay iskeega anagoo cidna taageeraynin walina waa wadi doonaa sawirka Gaalkacyo laga haysta mid ka bedelan baa awal sameynay hadda waa sii wadaynaa shaqooyinkan iyo kuwa kale ka hormarineed oo gobolka mudug oo dhan aan rabnay inaan gaarsiinano waa wadaynaa waxa kaloo jirta isdhexgal bulsho oo runtii aan ka wadnay magaaladan Gaalkacyo ay ka mid tahay sida dadku ka aaminsan yihiin magaaladu kala xiran tahay midaan bedelkeeda baan sameynay waxa habeen walba la caweynaa oo magaalada Gaalkacyo ama daanta kale ku caweynaa dhalinyaro walaalaheena isxilqaamayaal oo reer Galmudug ah oo runtii halkaan noogu yimaada anaguna halka u tagno si aan dadka u dareensiino magaalada inaanay ahayn fikirkii ka haystaan ah magaalo kala xiran shaqaygu wuxuu yahay inaan gaarno guud ahaan Soomaaliya fikirkaygu inuu gaaro Soomaaliya in dhalinyarada Soomaaliya aan dareensiino in ayadoo cidna la suginin dadku ay shaqaysan karaan wax xirban qabsan karaan horumar gaari karaan wadankooda quruxsan karaan guul ka gaari karaan bilicdiisa ay hagaajin karaan ayadoo cidna la isku tirin laakiin waxa weeyaan in maskaxyaha la mideeyo aqliga lagu daro xoog iyo muruqna la kaaliyo intaas oo la isku daray baa waxa lagu gaari karaa guul aan dawladda qaban aan hay'ado ku qabanin dhulkan anaga iska leh